wasaaradda horumarinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Sanaag iyo guud ahaanba gobolka Sanaag ka qaybisay in ka badan 30 kun oo geed oo isugu jira dhirta noocyada kala duwan taasoo loo qaybiyay hay'adaha dawladda iyo bulshada kala duwan ee magaalooyinka gobolka waxaana munaasabad ballaaran lagu maamuusay maalinta 15 Abriil ee u aasteeyay madaxweynaha qaranka Somaliland lagu qabtay xarunta barxadda weyn ee wasaaradda deegaanka iyo cimilada ee gobolka Sanaag waxaana xafladaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada madaxda iyo shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda deegaanka iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyntii halkaasi ka kala hadlay suduwaha wasaaradda deegaanka Ali Maxamed Maxamuud iyo maamulaha wasaaradda deegaanka ee degmada Ceerkabo Ahmed Maahir iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiintii hore ee wasaaradda deegaanka ee gobolka Sanaag waxaana sidoo kale halkaasi ka hadlay xubno isugu jira xildhibaano saraakiil ciidan iyo waliba isuduwayaal ayaa dhinacooda ku bogaadiyay wasaaradda horumarinta deegaanka dadaalada horumarineed ee ugu jirto dhiraynta guud ahaanba gobolka wayna ka faa'iideystaan ayna beertaan gaar ahaan waxaan isku sii boorinayaa degmada Ceerkabo iyo degmada Ceelafreyn oo dhirtu tribkan dhex taalo 10 kun oo geed baa Ceelafreyn yaala inay dhirta beeraan way kortay magaaladu way aad bay u fiican tahay inay ka faa'iideystaan oo ay beeraan oo ay maalinta qiimaha leh oo dhirtu u soo baxdo ay ka faa'iideystaan oo bilaash lagu siinayo dhammaan waan ku dabagelaynaa haddii Ilaahay idinka ka dhigo jeedada la leeyahayna waxa weeyaan in dhulka la dhireeyo waxa la geliyaa dhirta tacab badan bay wasaaraddu gelisaa waxa loo baahan yahay iyadoo la sooman yahay oo hadalkana loo badan yahay aan gaabid doono ciddii nasiib u yeelataa inay dhirta ka qayb qaadato in ay dhirtaasi inay dhiman in dhulka la dhireeyo in tacabkaas aan la khasaarayn saasaanu faraynaa dadka dhirtan nasiibka u yeelan doona inay qaataan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa run ahaantii wasaaradda guud ahaan ilaa iyo wasiirka agaasimaha guud iyo saraakiisha wasaaradda heer gobol iyo heer qaranba dadaalka iyo juhdiga ku bixinayaan waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha deegaanka gudoomiyaha gobolka Sanaag dhammaan iyo madaxda dawladda ee heer gobol oo iyaguna runtii ilaalinta deegaanka iyo gacan weyn naga siiya haddaan nahay wasaaradda deegaanka waxaanu kolley wasaaradda haddaanu nahay ku dadaalaa ta dhulka ku taalla inaanu ilaalino mid cusubna inaanu soo saarno oo beerno sidaa la socotaan dhirtu waa nolosheenni weeye waa caafimaadkeenna waa hawadeenna waa roob soo jiidadkeenna waxaan leenahay marka tanna ha la beero oo ciddii biyo haysa ee beeri karta baa la siin doonaa aad baanu runtii wasaaradda deegaanka uga mahadnaqaynaa tacabka ay qabatay iyo dhirta intaa leeg oo ay beertay iyo waliba dadaalka ay ugu jirto inay gaadhsiiso dhammaan gobolka deegaanka wasaaradda deegaanka anagu waxaanu kala qayb qaadanaa meelo badan oo aanu kaga qayb galnay dabargooyinta lagu samaynayo dhulka iyo deegaanka waxaanu wax ka qabanaa goof darar weyne fuqufuliye ciidamada qaranka ee jooga goobahaas oo dhan waxay ka qayb qaateen inay joojiyaan dhuxushii dhulka laga sidi jiray ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa waan ku guulaysanay ciidan qaran ahaan degmada Ceerkabo waxa noo qorshaysan inaanu sanadka beerno dhir ilaa 5 kun oo geed gaadhaysa dhirtaas waxaan ugu talagalay inaan u qaybino xaafadaha magaalada kuna beero shaariicada waaweyn ee magaalada dadweynaha degmada Ceerkabo sida magaalada Ceerkabo waxaanu ka codsanaynaa dhirtaas inay beeristeeda nagala qayb qaataan insha Allah waxaan rabnaa haddii Ilaahay raalli ka dhigo oo magaaladu ay inoo dhirowdo in shacabkuna ay ka faa'iideystaan oo dhirta ay ilaashadaan waraabiyaanna xoolahana ay ka ilaashadaan si magaaladu ay dhir qurux badan iyo bilic fiican inoogu yeelato faa'iidooyinka badan ee dhirtu leedahayna insha Allah waan ka faa'iideysan doonaa oo waan heli doonaa markaynu magaalada qurux badan iyo dhir qurux badan aynu yeelano insha Allah waxaan ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceerkabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barsaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Maxamed Khaliif Nuur inaguna waxa waajiba inaan tacabka khasaarayn ee aynu dee halka la waxaan iskama soo bixine hawl bay ku soo bixeen kharash bay ku soo bixeen dadaal bay ku soo bixeen oo shaqay ku soo bixeen inaguna in wixii dib ma weelayno oo hagaajino
ayaa nagu waajiba shacabkeena waxaanu sheegaynaa isku suuroobi maayaan inuu riyo ku dhaqanno iminka riyiba ka tagto idii bay maraysaa oo loodii bay maraysaa meeshii miyi iyo magaalada midna maaha markaa miyina maaha magaalana maaha suuroobi mayso ama magaalo qurux badan maynu ka dhigaynaa ama miyaynu ka dhigaynaa laba mid wey annaga qorshe wuxuu noogu samaysan yahay inaynu magaalada qurxinno oo magaalayno oo guri walba geed ku horridno oo aynu kulligan gacmaha isqabsanno oo ay ceergaabo ugu qurux badato dee dalka ayaa marka horta dhirtu manaafacaad badan bay leedahay waxayna jecel nahay inaan wasaaradda inta laga qaado meel la iska dhigine ayna ku qalinine qof kastoo geed qaadaa inuu beero oo geedka isna wuu manaafacadsanayaa ummadduna way manaafacaadsanaysaa waad garan kartaa magaalo markaad soo gashay hadday dhir leedahayna indhahaagu caafimaad bay dareemayaan hadday magaaladaasi tahay meel bilaa geedana waxaad moodaysaa inaad soo gashaa dhul saxaro ah marka horta dhirtu manaafacaadkeeda waa laga soo sheekeeyey madaxda wasaaraddana waxaan leeyahay idinka laftigeennu dabagal ku sameeyo ciddii geedida ka qaadataba haddeer damaanad u sameeyaba oo yaan dhirta la iska qaadano marka qofku geed doonaya wax yaa kaa damiinaba dhacaya oo dhirtiisa qaabkaad u bixinayseen qaab ka duwan ku sameeya marka taa laftigeed waxay noqonaysaa inuu geedku ama inoo yaallo waxaana ugu dambeyntii halkaasi dhir loogu qaybiyey mas-uuliyiinta kala duwan ee hay-adaha dowladda iyo qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Ceergaabo horena waanu qaadanay 50 geed oo hore aan hore u beeray saakana waa qaadaya 50 hore way baxeen dhowr iyo 20 kalena haddan qaadaya insha Allah inaanu daryeelo wasaaradana uga mahad celinayna inaanu daryeelo marlabaadka waxaan u mahad celinayaa wasaaradda deegaanka oo maanta qaybinaysa dhir aad u qurux badan oo la beeri doono insha Allah aanu beeri doono aad baan wasaaradda ugu mahad celinaynaa waanu beeraynaa dhirtaas si fiican waanu u beeraynaa wasaaradana aad baanu ugu mahad celinaynaa geennaba aanu ka beero kuwii aan kol hore qaadnay sanadkiisii waanu beeray waynoo beerayeen hadda waxaad moodaa quruxdooda yaawsa geedkana dayb baa la yiraahdaa siday tahayna waa u beeraynaa insha Allah haddii alla yari maanta waa maalin weyn waa maalintii nafaqaynta iyo soo aasaasidda beeritaanka dhirtu waxa weeyaan noloshay ka mid yihiin qofka ummaduna haddaanay dhir helin oo dhirta aan la beerin deegaanka saameyn badan baa ku imanaya marka dhirta waa in la beero oo la horumariyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdina waan u hambaleynayaa isagoo maalintan u aasteeyay in kor loo qaado oo la kobciyo oo la beero dhirta yadaaqa oo nasiisay saaka waxaan oo maxay haytay dhira oo aanu maxay haytay gadhareed oo aanu harsanayno ninba gabiyo wuxuu yiri shimbir baan yiri samay malab ileen shinni baan yiri samay malab ileen ma shaqaynini waxay tiri sidaa timi oo dhirtii aan ka shibi jiray dhuxul baaba laga shiday anna maan shareerina shaacaan ka qaado shacabkaan u sheego bandhigay dadweynihi wuxuu sheegay ummaddo si ay qarannimadana u dhowraan sharcigana u dhowraan dhirta yaan la shidindhaha qof walow 5 geed beer maanta waa maalintii 15 bishii afraad marka waa maalintii dhirta la bixin jiray aad iyo aad baa dhirta loo beeray aad bay u qurux badan tahay sanadkii horena sidaas leeg marka alxamdulillah rabbil caalamiin iyadoo ugu dambeyntiina mas-uuliyiintu halkaas ay dhir ay ku beereen cali aadan daahir TV caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo